wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoona ayaa maanta ku wareejiyay 3 baabuur taliye ku-xigeenka ciidanka bilayska Somaliland iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Sooteelko iyo saraakiil ka tirsan ciidanka bilayska Somaliland ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Sooteelko maanta farxad weyn bay noo tahay inuu halkan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejinayo bilayska 3 gaari oo ay ku shaqeyn doonaan oo gawaadhidii bilayska oo gawaadhi aad u wanaagsan waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaantiinba inaan kala qayb qaadano xafladda iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidanka bilayska Somaliland mudane wasiir waxaan aad ugu faraxsanahay oo kaaga mahad celinaa gaadiidka 3 baabuur ah oo kuwa ciidanka ah oo lagu shaqeeyo aad maanta lagu wareegsanayso waan kaaga mahad celinaynaa calaamadii ciidanka leh waan kaaga mahad celinaynaa waxaan mas'uuliyaddeeda qaadanaynaa inaan dayactir iyo wixii alla wixii u baahan yihiin iyo ilaalintoodaba aanu gacanta ku hayno shaqada qaranka ee loo igmaday ama aad doosisay inaan ku fulin hadii ilaahay ka dhigo wadnaa ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoona oo 3 gaari ku wareejiyay taliye ku-xigeenka ciidanka bilayska Somaliland munaasabadda tanjidada waxa weeye inaan halkan aan booliiska ku wareejino ciidanka booliiska inaan ku wareejino 3 gaari oo aanu rajaynayno inay qayb ka qaadan doonaan wanaagsan nabadgelyada wadooyinka iyo dhowrista amniga gaar ahaan gawaarida mid ka mid ah airport oo looga baahan yahay ayuu ka shaqeyn doonaa kuwa kalena hadba meesha looga baahdo ayay buuxin doonaan waa gawaari u habaysan ilaalinta wadooyinka iyo dhowrista nidaamka wadooyinka lagu socdo sidaas weeye ujeedadu sidaa darteed furayaashii 3 gaari waxaan ku wareejinayaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska taliyihii oo la wareegi lahaa gawaadhida tan hawl buu waad baasantay culus waa ku soo anoo ku hadlay afkii taliyaha ciidanka kala mas-uul ciidanka مسؤوليتي أنا وسيقولني تريح عيدك وأنا كلو رجلين بدن. خالد يوسف حسن خالد فانتاستيك تلفزيون كعالمي جوابر تي في مقالة هرقيسة.